waa qaybtii afraad ee barnaamijka taxanaha afmeer oo aanu ku soo qaadan doono sheekada mid ka mid ah horjoogayaashii amniyaadka al-shabaab ee gobolka Mudug waa Cabdulqaadir Axmed Umal Abu Cabdalla ku-xigeenka koowaad ee horjoogaha guud ee amniyaadka al-shabaab ee gobolka Mudug maangaamnimo doqonnimo weheliso damiir la'aan iyo jaahilnimo waa astaamaha kaliya aan ku sifeyn karo horjooga Abu Cabdalla dhammaan ficilada xasuuqa iyo gumaadka argagixisada al-shabaab ay ka geysteen geeyga Soomaaliya ayuu u arkaa camal Ilaahay loogu dhawaanayo waa caqiidi sax u arka jarrimooyinka al-shabaab ay ka geysteen magaalada Gaalkacyo muddadii 13 sano ahayd sidoo kale waa miinayste si gaar ah loogu soo tababaray diyaarinta qaraxyada yaana sheeko kugu daalinay arrimahaas iyo kuwa kale ayuu uga warramay taxanaha afmeer isagoo wajigiisa aad ka dheehanaysid heerka xagjirnimo ee uu gaarsiisan yahay soo dhawow Cabdulqaadir Axmed Umal Abu Cabdalla ku-xigeenka amiirka koowaad ee ururka al-shabaab ee gobolka Mudug waxa ku soo dhawaataa interviewgan ama waraysigan ugu horeyn waxa aad ka bilowdaa taariikh nololeedkaagii meesha wax ku baratay meeshaad haddii Ilaahay ku idmahayo aad ku barbaartay waxbarashadaada aqoonta maadiga iyo diiniga bilaabo Cabdulqaadir Axmed Umal waxaan ku dhashay magaalada Gaalkacyo sanadkii 1991 waxbarashadeedana waxaan ku qaatay magaalada Gaalkacyo waxaan ka gaaray dugsiga hoose ilaa dugsiga sare sidaas ayaa taariikh nololeedkayga xag waxbarasho iyo xag kalaba dugsiga sare xagee ka gaadhay ma dhamaysid foomam baan ka gaaray iskuulkee iskuulka Cumar Samatar waayo aqoonta diiniga heerkee ka gaarsiisantaa aqoonta diiniga ma badna haya laakiin waa ay jiraan kutubo aan akhristay maxaa ka mid ah arbiciinka iyo kitaabka Riyaad Saalixiinka arbiciinka iyo Riyaad Saalixiinka quraanka xagee ka gaadhay 25 juz iska shanaad sanaad maada dhamayn waaya waalidka iyo walaalaha iyo familkaaga iyo qoyskaaga xagee joogaan Gaalkacyo dadkaaga noole Gaalkacyo joogaan Gaalkacyo aduna xataa nin reer Gaalkacyo miyaa waaya sanadkee ayaad ku soo biirtay ururka argagixisada al-shabaab 2012 bishee bilowgii hore sanadka bilowgii bish 2012 yaa kugu soo diray ururka al-shabaab waxa igu soo diray Jeeri waa igu soo diray Maxamed Axmed Jeeri cawka Jeeri gorma isbarteen adiga Jeeri sidee isku barteen Jeeri waxaan isbaranay sida sanadkaas ayaan isbaranay sagana ay mataqaanaa igu soo diray xarakada سان حركة كوجو صدري سده وضدي بكم مرين حركة كوجو صدره وإيصاب بندقي مركه هو الاسكوسه وحكته وين كيسا موقته وين وح كيسا موقته وإيصاب بندقي وإي متقنا وإي لما يستريح حكتي ساسا ugu beer inta lag bay inuu aad ku soo beerto al-shabaab ay ku qaadatay Jeeri ilaa ma 3 bari kala duwan waaya aniga markii la rabo inaan al-shabaab la igu soo diro wadada la soo maraya ilaa shabaabnimadu in la noqdaahi wax fudud maahan waa urur argagixiso ah caalamka oo dhammaantood ka ah waliba xilliga aad ku soo biireysay xilli ay shaqeynayeen
oo ay muddo fiican shaqaynayeen in lagu dhaho shabaab noqo af Soomaali maahan laakiin waxaad iga dhaadhicisaa qaabka shabaab inay noqoto jeeri kaaga dhaadhiciyay bal ii sheeg hawlka sameel bay ka bilaabatay adigu barnaamijkaas si fiican oo dhameystiran igu soo bandhigay kabacdina waxay noqotay inaan barnaamijka la qaato oo aan aqbalo sidaas markaa ku aqbalay waagar saas markaa waxa ka mid ah waxay ku adeegsaday ani waxaan rabaa tusaale hadda ama aad shabaab rabtiin ay ugu soo degdega soo ka soo qaad bal dheh wuxuu jeeri ku yiri timirow qaala al-shabaab noqo ma intaas hadalku ma hadal ka badan bal wax ii sheeg adiga jeeri laba nin oo isku luqad ah baad ahaydeen aniga adigu isku luqad baan nahay bal wax iga dhaadhici qaabka qofka isaga la imaanaya qaabka uu kaga dhaadhicinayo oo wax soo la imaanayo qof ma ka dhaadhicin ka al-shabaab inuu noqdo may dad tababaran baa jira waxa la yiraahdaa waa iyadoo shaqo gooni ah tashkiil waa qayb gooni ah intee sana jirta xilligaad adoo al-shabaab noqonaysa adigu 22 sano markuu 14 sano 13 sano uu jiro wuxuu oran karaa waa la khaldan ma lagu khalday mise rabitaankaaga iyo ogolaanshiyahaaga aqligaaga oo tamaam ah baad ku soo biirtay al-shabaab mirkayga waa joogay mirkayga maskaxda waa garashada go'aankaaga wax lagu khalday ah ma aaminsanid inaad ugu soo biirtay miya waxaan go'aan weey moogta marka adigu ka dhaadhicintaas baa ugu muhiimsan adigu mar aad ku qanacdo waxay noqonaysaa amina diidid amina yeeshay marka adiga laguma khaldan laakiin go'aankaaga ku qaadatay al-shabaab qofku markuu noqonayo saddex buu u galaa qof u gala ara iyo ceel uu dadka deegaanka oo markaa ka qaaday ama wuxuun tirsanaya ama mid qabiil ha ahaato ama mid dawladeed ha ahaato qof iska dhaadhiciyay uqdad naftiisa oo argudasho u gala iyo anamayo mid labaad qofku inuu u galo aqiido iyo mabda diini ah inuu aaminsan yahay markaa wada xaq ku taagan yihiin iyo inuu u galo qofku lacag iyo baahi darteed ma dhaqaale ka raadin saddexdaas maxaa ku doo mid aan ku gashay mid jirta way jira waxaan ka tilmaami karaa hanti iyo aqiido ahaan waan qaatay aqiido iyo dhaqaale ahaan dhaqaalaha al-shabaab ka heshay inta shaqada ku jirtay imisoo gaaraya lacagtii aad markaa ku filaysay oo ku ballan qaaday jeeri maxaa ka xasuustaa intaada waxa haysatay aan gelin lacagtii dhaqaalahayd lagu ballan qaaday oo aad u gashay al-shabaab maxaa ka xasuustaa waxay haba noqon karaa daan qiyaas adoo lacag la $200 $200 على دل على هول ماذا بشي markii ma taqaanaan lagu sheego oo wixii aad yeesho bay ku noqonaysaa lacagtaas ku noqonaysaa mid lagu siiyay $200 marka hawsha aqbasho $200 lagu siinayaa wixii ka dambeeyana waa xarakada ka mid noqonaysaa xarakada ka mid noqonaysaa kabacdi ayaga qof ka tirsan baa noqonaysaa waaya dhaqaale $200 aad u gashay ina markaa lagu siiyo ururka al-shabaab iyo caqiida ahaan aad ku qanacday in al-shabaab waxay sameynayeen ay kula saxsanaayeen Soomaa marka aaminsanad caqiida ahaan waa aaminsanay waa garta oo soo laaban doona su'aalo kale arintaas la xiriira waxaan rabaa inaan ogaado
intii al-shabaab ku jirtay tababarada iyo hawlgallada iyo waxaas oo dhan waa dib baan soo aadi doonaa laakiin waxaan arrinta dhaqaalaha inaan ka bixin lacagta ugu badnayd al-shabaab ka qaato imise ahayd lacagtii ugu badnayd aan xasuusto lacag ilaa 300 hawlgalka ku qaatay ma xasuustaa qaybta ka ahayd waa lacagtii ugu badnayd hawlgal maaha iyadu waa lacagtii ugu badnayd hawlgal maaha al-shabaab waxa firi uma bixiso xisaabta ku dar shaqada aan markaa qabateen adiga saaxiibadaada kale ku guulaysateen ee lidin siiyey 300 ku qaatay maxay ahayd يعني abaalmarin ahaan markii ay noqotay in aan soo noqday hawshe markaas tababar ka soo noqday laysi lacagta kugu badneed miya waaya kadib tababar baad aaday Soomaa xagga waad toro waa gartay halka ayaa ka diray galka ayaa ka diray waxa iga diray maxamed xashi sanadkee 2012 toro ayaa kugu soo dhaweeyay ragii igu hagaajiyay maxamed xashi toro waxa kugu soo dhaweeyay maxaa xashi ragii igu hagaajiyay isagoo ragga kugu hagaajiyay yaa kamid ahaa ama aad ka xasuusataa ninkii macalinkeedii ahaa xerada toro tababar ku qaadanaysay wuxuu ahaa cali magaciisa xarakiga ma xasuustaa hadda laakiin magaciisa caadiga baan xasuusnaa waayahay tababarkaasi wuxuu ahaa tababarkii toro okay nooc ma tababarka uu ahaa qaabka la isku difaaco koow adigu isku difaaci ka dhaadii u baahato haye hadii ma taqaanaa qaraxyada oo diyaarintooda labo iyo tababarada oo adigu lacag hadii loo baahdo tababar bixiso waaye tababarkaas intee buu qaatay muddo 6 bilood 6 bilood waaye galkacay ku soo laabatay waa gartay galkacay markaan ku soo laabtay waxaan la kulmay sheeri baan la kulmay maxaa xashi hadde meeshii iyo wixii inaan soo noqday waa arkeen waa la soo dhaweeyay waxaan ku kulanay dukaanka maxaa xashi waa goorta dalacaysid oo aad xil kor lagu magacaabay oo maxaa xashi inaad ka hoos aad ku xigtid goorta lagu magacaabay 2012 baa lagu magacaabay ku-xigeenka maxaa xashi miya waaya sababta dad badan baa xarakada kaaga horeeyay oo dilal ka geysanay magaalada Gaalkacyo maxay tahay baad soo ran kartaa sababta aad ku xigeen ugu noqotay maxaa xashi oo jeeri oo adiga laftigaaga xarakada al-shabaab kugu soo diray lagaaga kormariyay jeeri baa wuxuu go'aansaday inuu hawshaas ma taqaanaa aniga uu soo bandhigo isaga waxyaabo badan baa laga yaabaa inuu qarsoon yihiin aan ogeyn ma garad laakiin aniga wuxuu ii sheegay inuu jecel yahay arrintaas aniga igu wareejiyo xilka ah inuu aniga igu wareejiyo inuu jecel yahay buu ii sheegay aniguna marka waxaan ku yidhi maxamed xashi u sheeg aan wada sheegno ma fahanta waka maxamed xashi marka loo wada sheegay marka taasay ku timi kabacdi marka maxaa xashi uu qaato go'aankaas saasuu marka go'aankii uu ku soo gaaray maxaa ku magacaabay maxaa xashi amiirka labaad ee gobolka mudug ma inta Puntland gobolka mudug ay gacanta ka haysaa mise waa gobolka mudug oo dhan galmudug Puntland marka la isku daro gobolka mudug oo dhan way yaa kale idin la ogaa xil wareejintaada in adiga xil lagu magacaabo jeer booski uu ka baxay maalinkaas saddexdeena ahayn bas ma gartay dib yaa laga ogeysiyay
dhinacyadii kale ee waqooyiga gaalkacyo koonfurta gaalkacyo ka hawlgalaysay xogtaada loo gaarsiiyay waxa gaarsiiyay maxaa xashba gaarsiiyay markasta qofka ugu kulanka badan aha maxaa xashba marka gaarsiiyay cidii markaas loo baahan yahay in la gaarsiiyo ma la is oran karaa bacdama adigu tababarka uu ahaa inaad tababaradan bixiso qaraxyadana soo qaadatay in xilkaagu uu arintaasi sabab u ahaa in lagu dhiibo jeeri waxa uu qarsoonaa ma sheegi karo calooshiisa ma uusan iiga waxa soo baratay ma la is oran karaa xilkaas asaas ku mutaysata waa la dhihi karaa balse jeeri wax arintaas carabka kuma dhufan wuxuu ii sheegay in arintaa jeclaysto intaas ugu gudbo laakiin waxa uu qarsoonaa ma garan karo waa garta dabadeed waxaa bilowday xilliga hawlgalladaada iyo shaqooyinkii 2012 ilaa 2020 oo ah xilligii lagu soo qabtay adaa waxaad ahayd ku-xigeenka amiirka koowaad Soomaa ee gobolka Mudug ahna madaxa qaraxyada iyo tababarada waaye waxaad ii sheegtaa bacdama taytalka noocaas aad leedahay waxaan rabaa inaad iiga jawaabto su'aalo muhiim ah oo uu ka jawaabi lahaa qofka darajada adoo kala haysta waa su'aasha koowaad waxay oranaysaa aan garan karo waa kaaga jawaabaya amiir baa tahay Soomaa ku-xigeenka amiirka koowaad ee xarakada al-shabaab ee gobolka Mudug baa tahay Soomaa waxaad iiga jawaabtaa maxay tahay sababta dadka ay u leyso ururka al-shabaab maxay tahay gaar ahaan gaalkacyo dilal madax jabin ah oo si cayiman loo bartilmaameeysanayay dadka miida u ahaa reer gaalkacyood haday noqon lahaay aqoonyahan dhaqankii nabadoono saraakiil ciidan bulshadii indhahoodii ganacsato ninacna lama dhaafin waxa ii sheegtaa sababta ay al-shabaab ku dooranaysay dadka xulka u ah reer gaalkacyood inay disho sababta waxaa la dhihi karaa wixii marka ayagu ay u arkayeen cidda ka soo horjeeda yaa waxay kalifaysa in lagu sameeyo mataqaanaa waxa la yiraahdo isha iska dhicin baa waxay kalifaysaa in sabab looga dhigo waayo qof aan ka soo horjeedin ama uusan amar uusan ku imaan cidna ma dilayso in hor imaansho laga hor yimid xarakada waa dhihi karaa iyo in amar uu ku soo baxay labadaasaa loo sababeyn karaa oo halna isku noqon kara dadka al-shabaab ay dilaysay ama ay disho maxay ku xulataa inay yihiin oo qofka ayaga u arkaan inuu yahay qof mabda'ooda ka soo horjeeda oo taa macnaheedu tahay waxa mabda'ooda ka soo horjeedi kara inta aqliga u saaxiibka bulshada sida daraadeed baa loo bartilmaameeysanay dadka aqliga u saaxiibka miya waa dhihi karaa saasa la dhihi karaa waaye dadka adlayseen in badan oo ka mid ah dawladda umay shaqeyneen dadka maxaa u disheen waanigi markii hore baa kusaan kuu sheegay haddii amar uu yimaado oo ku yimaado qofkaas amarkaas dee waa fulaya haddii amarkaas caqabad ka hor imaado uusan jirin haddii caqabad ka hor imaado uusan jirin amarka waa inuu fulo hadduu soo baxo oo caqabadna uu sameyn waa fulaya laakiin hadduu soo baxo laakiin caqabad leeyahay haddii qaab kale loo maareyn karo ama cid kale loo diri karo ama qofkaas su'aasheeda kama jawaabin caqabada ila aadaya amarku muxuu yahay waxaan ku yiri dadka ay al-shabaab dilaysay dawladda uma ay wada shaqeyneen dad aan taliye ciidan ahayn maxkamad haysan duqdag ma ahayn dawladda hoose u shaqeyneen xildhibaan aan ahayn oo badan oo shacab ah oo ama iska xoogsata ama meelahooda iska xamaasha baa madaxa la jibinay maxay tahay ujeedada rasmiga ilaa hadda Cabdulqaadir Umalo imaada sheegay ujeedada rasmiga ee ka dambaysa al-shabaab dilalkii gaalkacyo muxuu ahaa waxay u arkayeen xarakada waxay u arkaysay in dadkaas ay ka soo horjeedaan xarakada qaab kale oo hadda aan ku fasiro oo aan ka ahayn ma uu jiro ama ma garanayo halka qaab baan garanaya halka qaab baad garanaysaa yaa way qofka ay ka imaanayso amarka dilka dadka laynayo dilalka
dadka la leynaya nooca ay noqonayaan cidda ay ka fuliso ma tiimamka shaqada dilka iska leba mise waa madaxda idinka ah tiimamka shaqeynaya way soo gudbinayaan wixii xog looga baahdo loo diro way soo gudbinayaan waxa amarka iska leh cidda anaga naga sareysa iyo cidii ka sareysa ba amarka bixintiisa iska leh cidda idinkeedii ka sareysiyaa xaash ba go'aanka iska leh kala tashan jiray maxaa xaash cidda la dilayo soo ku xigeenkiisa ma aadan ahayn xigeenkiisa waa wax talaam ku lahayd dilalka gaalkacay ka dhacay muddadii adigu 8 sano ahayd oo ku xigeenka amiirka ahayd wax talaam kuma leeyahay go'aanka ugu dambeeyay waa asaga iska lahaa go'aanka ugu dambeeyay asaga iska lahaa marka anigu wax talaam kuma leeyahay hal su'aal iga jawaab min reer gaalkacyada tahay Soomaa deegaan ahaan Puntland ka soo jeeda waligaa ma istire maxamed xaashi muumin inkastoo nin Soomaaliya uu yahay haddana ururka al-shabaab uu madax u ahaa gobolkan wali dadnimadaada iyo qofnimadaada ma ku tustay in ninkan dadka uu leynayo ay yihiin adiga dadkaagii Soomaali marka laga yimaado in ay yihiin dadkii gobolka aad u dhalatay waxgaradka uu ahaa aqliga uu ahaa aqoonta uu ahaa hantida uu ahaa magacay maamuuskii milgaha ku lahaa dadka la leynayay inay ahaayeen dadkaagii wali ma istiri maxaa dadkaaga lagu leynayaa marka aad talada ma taqaanaa wax laga siiyo baa arinkaas oran ka dhaha waxaad ku xigeenka dad tala wax ku lahayd talada ugu dambaysta ah marka wax ku leedahay markaas aad dhihi kar fikri ka dhaha laakiin hadda talada ugu dambaysta aadan lahayn ma ku soo dhacaysaba laakiin adoon baa lahayn marka lagu shaqeysto wixii caqabada laakiin wixii caqabada maxaa loo jeedaa wadaasmin wixii aniga la iga maarmi karo kale ku hagoonga ka dhimiya may aniga la iga maarmi karo oo si toos ah jeer u soo amri karo adiga su'aasheeda waxa weeye wali maxaa xaash inta hor fariisata ma tiri niyo waxa waa khalad haddaadan xataa is oran inaad ka hortimaadid baab kala way maskaxdaada ma ku soo dhacday adiga qof bini aadan oo ilaahay damiir iyo dhiig iyo dhacaan uu ku abuuray sameeyay waana ismaan oran way anaba waxaan islahaa dadka kale hadaysan hadleen adigu hadleen ma fahmt arintaasna waa laga wada sinaa kala maxamed xaashi uu taliyo waxa aysan ma taqaanaa aysan ku afbilaabin adigu ha howlboodi marka waxaad raalli ka ahayd waxa socday oo dhan raalli baad ka ahayd markaaga horena wareysiga waa ku sheegtay oo qadiyad iyo mabda diini ah adoo aaminsan baad ku gashay al-shabaab waxa dhacayna raalli baad ka ahayd waxaan codsan lahaa su'aalaha aan ku weydiinayo hadday suurtagal tahay aniga way ii muuqataa inaysan suurtagal ahayn in aadan rabin way ii muuqataa xogta iyo wareysigan ka qaadayo sida ilaahay kugu og yahay calool fiyoobida leh inaad iigu waranto inaadan rabin way ii muuqataa su'aal walbaan ku weydiiyana jawaabtaadu waa haa iyo maya laakiin waxaan codsanayaa hadday suurtagal xaggaaga ka noqonayso in aad xogta aan kaa rabo ama interviewga aan kaa qaadayo ogolaanshahaaga ku bixisay in aad si daahfuran aad iigu waranto dhammaan macluumaadkii su'aalaha adiga aan kaa rabo al-shabaab waxay sheegaan intooda badan madaxdooda ama horjoogayaashooda u sareeya markii ay TV-yada iyo idaacadaha ayaga afkooda ku baxay ay ka hadlayaan ama ay u khudbaynayaan dhalinyarada ay ayagu maanka ka xadeen in dadka ay u dilaan inay yihiin murtidiin una yaqaanaan cidii iyaga aan la shaqayn murtidiin dhammaan dadkii gaalkacay lagu dilay sida amiiradaadu ay qabaan inay ahaayeen murtidiin ma la qabtaa adigu inay murtidiin ahaayeen waa la qabtaa waayo dhaqaalaha dilalka ha noqoto madax jabin ama ha noqoto qarax
dadka lagu fulinayo dhaqaalahoodu ma kala duwan yihiin ay xarakadu ama koox timamkeenu aad ku qaadataan iyo intaad xog ka hayso bal faahfaahin naga sii kala duwanaanshaha dadka dilalka madax jabinta iyo qaraxyada lagu sameynayo iyo sida ay kala yihiin haddii uu yahay qofka qof mas'uuliyadiisu ay sareyso qofka haddii ay mas'uuliyadiisu ay sareyso iyo qof mas'uuliyadiisu hooseyso isku lacag maaha hadba waa intii mataqaanaa amiirku u qoondeeyo laakiin waxay iska wadaagaan inaysan sinnayn maxay tahay farqiga u dhaxeeya qofkan markuu darajadiisu sareyso qof kale oo ka darajo hooseeya ka lacag duwan yahay tusaale ahaan oo kale waxay noqonaysaa laba qof oo mid sareeyo kan sareeyo dhaqaalaha ku baxa kan ka hooseeya ku bixi mayo saasaa marka ay u kala duwan yihiin marka qofka iska shacabka ah iyo qofka mas'uulka dawladeed ah ama ilaalaha wato ama xil fiican marka ha haye dilka ku dhaqaalaha lagu bixinayo dilkiisa waa kala duwan yahay waxaad iga jawaabtaa hubka dadka lagu laayo gaar ahaan bistooladaha madax jabinta loo adeegsado xagee laga keenaa xog inta ka hayso bistooladahaas waxaa laga keenaa kor bay ka yimaadaan sida qaraxyadu ay kor bay uga yimaadaan kuwada diyaarsan kor bay ka yimaadaan bistooladahaas bistoolado kor bay ka yimaadaan ma jira wax bistoolada gaalkacayla aad ka gadateen intaa hawlgalada ku jireen intii anigu aan shaqada bilaabay anu nimaana marka xogta hawlgalada adugu aad qaybta ka ahayd bacdama aad ahayd ku-xigeenka amiirka al-shabaab ee gobolka mudug 2012 ilaa 2020 muddo 8 sano aad u amiir ahayd ku-xigeen aad u ahayd maxaad xaashay maxaa xog ah oo aad ka haysaa qaraxyadii ka dhacay magaalada gaalkacyo maxaa sadoor aad ku lahayd waxaan door ku lahaa qaraxi Muxiidiin Gacmi okay yaa sameyntiisa lahaa gaariga uu samaysnaa gaariga lagu dhajiyay waa diyaarsanaa gaariga isku dhufanaya baa qarxa ku dhagsanaa saasoo marka uu ku qarxa oo isku dhufta marka dhajis buu ahaa mise gaari qarax lagu diyaariyay gaarigu ahaa dhajis waxaan u naqaanaa qaraxyada hoos baabuurka looga dhajiyo kursiga hoostiisa lagu dhajiyo qofka daroolka ku qarxa noocma horta gaariga Muxiidiin Gacmi lagu qarxiyay wuxuu ahaa Jeesar buu ahaa gaari Jeesar ahaa gaariga qarxiisa ma diyaariyay yaa diyaariyay gaariga qarxiisa ana diyaariyay waxaan la ogaa amiirka iyo hooseeya amiirka ka sareeyay iyo ku-xigeenkaagii Jerry waaye maxaa kale oo aad adigu diyaarisay diyaarintooda wax kala hayd qaraxii xeradayax laba qarax baa ka dhacay xeradayax kii noohada kan kale uu diyaarsanaa kan noohada aan u diyaariyay kan kale soo diyaarsanaa waa markiisa hore u diyaarsanaa gaarigu ku diyaarsanaa waxa lagu soo sameeyay galgudud baa lagu soo sameeyay balaakan kan kalena waa galgudud ka muusa imaan magaalada lagu diyaariyay ku diyaarsan qiino hada haye yaa diyaarintiisa kala qayb qaatay maxamed xaashi iyo Jerry qaasim al-turaay muxuu door ku lahaa sawna waana la jooga sawna diyaarinta qayb uu kala lahaa markii qofku uu meesha joogo ma iska daawan maayo isna doorkiisa ku yeelanaya intii rabtaa la ekaatay haye laakiin gaarigaas qaraxa noohada ninka diyaariyay ku magacaaban waa adiga waan diyaariyay laakiin waa leela diyaariyo kaligay kuma ahayn waaye gaariga noohada ahaa soo diyaarisay xeradayax waxaan u diyaarinay gaariga markii geerishka la keenay gaariga qaraxa ama gadaal baa laga saaraa ama qayb baa loo jaraa kaano hada qayb baa loo jaray markii loo jaray gadaal baa mataqaanaa qayb looga sameeyay halkaas laga saaray kabacdi fiilooyin baa looga soo talaalay meeshii munaasib noqota
ayaa fiilada loogu xiraa haddii ay noqoto gaariga bahalka la yiraahdo leberkiisa iyo hadday noqoto gaarigu markuu jug dhahdo haba meesha markaas munaasib loo arko okay gaarigaasi marka xagee loogu diyaarshay qaraxiisa qaabkee buu ahaa ma remote buu ahaa ma mid controlku darawalku hayuu ahaa oo darawalka u talaalan ma mid gaariga xawaarihiisa iyo waxa lagu talaalay buu ahaa muxuu ahaa gaariga qaraxas gaariga xawaarihiisa lagu talaalay buu ahaa oo markii uu xawaarihiisa uu gariirka sameeyay qarxay buu ahaa gaariguna ku talaalnaa waka saasoo marka ka bacd ku qarxay markii meeshii uu gaaray maxaa loo baahan yahay markii qarax la diyaarinayo tusaale markii la rabo qarax in la diyaariyo maxaa loo baahan yahay maadaama adigu diyaarisay ii sharax qaabka u diyaarisay waxa loo baahan yahay bira loo baahan yahay waxa loo baahan yahay buudan loo baahan yahay buudan ay meeladu ay ku qaraxdo waxa kale loo baahan yahay ilaahay ku fiilooyin baa loo baahan yahay waka haso marka maada isku xirxiray waa la igula xirxira wixii si ay u noqoto wax hadhow aan wax ka soo noqon waa la igula xira oo ragaas hadda aan ku soo sheegay waa igula xiray ragaasoo dhan qaraxyada ma ay wada baran ka war qaybtood ma aysan sheegin qaraxyada ay barteen markii la isla joogo qof kasta waxa laga yaabaa inuu wax ka arkay ku dhaho uu tala kaala bixiyo ku dhaho halkaas ka dhig ama ku diida ama ku yeeshin marka talada noocaas waa kula hayaan anigu aan sameeyay laakiin talada nooca talo uga furnay waa wax anigu keligay qof wuxuu aqoon ma ka tala dhiiban karaa in ayagu aysan inta badan aysan mataqaanaa talada ugu dambaysa aan lahayn laakiin ay tala ugu siiyaan anna markii wixii aan u arkay inay saxan yihiin waa qaadanay oo ma diiday waa garta imisa ku qaadata qaraxi xeradaya $280 baad ku qaadata qaraxi muxuu diin gacamina 200 sana ku qaadata 280 hay qaraxi daba ka riix iga war qaraxi daba ka riix asna noo hada sana marka qaraxu ku fulay iyadana diyaarinteeda ana diyaariyay balse waxa ila joogay markaas maxaa xashi iyo qaasim waa ila joogay talada wax bay ku lahaayeen saasan qarax ugu soo diyaarinay ka bacdina qaraxiisaas ku fulay maxaa ku qaatay dhaqaale isaga 290 qaraxyadii kale gaalkacay ka dhacay jaakadaha ahaa haday noqon lahayd kii gaada yare haday noqon lahayd kii taliyaasha ciidamada isku dhafka dhinaca Puntland qaraxyadii koonfur ka dhacay oo kii Sheekh Cabdulle Cilmiyare loo oran jiray oo isna koonfurta gaalkacyo ka dhici jiray maxaa door ku lahayd jaakadaha qaraxyada dadka ismiidaaminta ahaa jaakaduhu ayagu culeys ma laha jaakadaha culeys ma laha tiimamka oo jeer xukuumada ku filan waa un xirisho kaliya jaakadu culeys ma laha yaa soo diyaariyay jaakadaha ayagu darsan bay yimaadaan xagee ka yimaadaan wax ka yimaadaan galguduud bay ka yimaadaan galguduud bay ka yimaadaan galguduud ka xagee ceelbuur halkaas ay ka yimaadaan jaakado waaga dadka ayaga qaraxa sameynaya shakhsiyaadka naftada haligayaasha ayaga balkawr qaabkooda markaad aragtid maxaa xog haysaa ayaga xogtooda waxay la wadaagayaan marka ay soo diyaariyaan amiirka u imaanayaan marka amiirka qof isdiyaari markii uu keeno markaas gaariga qaraxa loogu diyaariyaa iyadoo aan lahayn lama diyaarin karo iyadoo aan lahayn qofka isqarxin lahaa lama diyaariyo jaakada iyo alaabtaba marka waa in qofkii uu diyaar yahay marka diyaar garowgaas amiirku tala gelinaya waka waaye dilalkii caadiga ah ee aad adigu gacanta lahayd waa imisa waa 2 dil wada ma jiraan may waa labada dil aad gacanta lahayd maxaa kuu geeyay adoo haddaad amiir ahayd dilalka waxa ii geeyay 2 dil bay ahaayeen midna masaajidka Al-Aziz buu ka dhacay midna masaajidka Ramadan buu ka dhacay marka labada dil
أنا استجابني maxaa isku tijaabinaysa أنا سمين كرو دليل أول shaki baa kaaga jiray ماذا وحي أصوبرتي وحي أبهين أنا سمين كرتو إن كلا إنا فيرسو واد ليلة هذا وحي أصوبرتي واسميس marka saas ay u kaliftay inaan labadaas sameeyo isku tijaabisay laba dil ayaa isku tijaabisay inaad bal wixii aad baratay sameyn ka dibin kale aragti ahaan waxay kula tahay marka ficilka noocaas qof iyo baad isku aragtay mise qof caafimaad qaba markaad leedahay waxaan isku tijaabinayay laba qof dilkooda ma qof caafimaad qaba isku aragtay mise qof waalan qof caafimaad qaba isku arkay labada dil ayaa lagu kala fuliyo dil mid masaajidka radan buu ka dhacayo nabadoonka duba baa lagu dilay saaca duba koow kan kalena wuxuu ka dhacay masaajidka ka dhacay buu ka dhacay al-aziz ma ogsoonta masaajidka al-aziz dilkii ay ka geysateen ninkii iimaanka ahaa sheekadan bilowgeeda ku sheegtay inuu nool yahay ma ogta sanadol idinku ugu min kamina xisaabtamin wax dhici kara nool yahay nolosha Ilaahay waaye labada dil baa isku tijaabisay waagar hadda maxaad mudanaysaa bay kula aqligaaga garashada marka dib ugu laabatid waxa ay geysateen dib ugu laabatid waxa soo diyaarisay qaraxi xiradayax oo sodomeeyo qof ay ku dhaawac ku dhinteen ku dhawaad 30 qof ay ku dhinteen tira inta ka badan oo dad maatay u badan oo shacab iyo masaakiin ah u badan iyo askar meeshaas joogtay ay ku dhinteen waxaad qayb ka ahayd diyaarintii sida afka ka sheegaysid oo diyaarisay dabaka riix gudoomiyaha hore gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur Kamas waxaad qayb ka ahayd weerarkii lagu qaaday taliyay hore ciidamada booliska Puntland Muxiidiin oo isaguna ku dhaawacmay iyo askar badan waxaad amiir ka ahayd muddo 8 sano ah 2012 ilaa 2020 dilalkii madax jabintii gaalkacay ka dhacayay baad tala iyo garaaf ku lahayd haddana sidii aan rabnay nooguma aad warramin oo interview dhameystiran oo farxad gelinaya aniga laftigay ku wareysanaya ama xog ahaan aan ku qanci karo ima aadan siin intii aan niyadeyda ay maskaxdayda ku jidhay oo aan islahaa waa xog aad bixin karto waa bixin wax ugu laaban ma jiro iyo wax dadaal wixii aan mudan karana waxaan rajeynayaa insha Allah taala khayr baan rajeynayaa insha Allah Cabdulqaadir Axmed Umal waxaan rajeynayaa dawladda cadaalad ka hesho